السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شرفت لملك استاء جوكتان إلهي سبحانه وتعالى دنبقنا يدنبق والدكنا الأفو وحما هادس كلا الله سبحانه وتعالى انت كدبنا وحانو مهد علينا يا دمان ولا لها كحرا بيج كان إسلام مركانا يقول عاويين سيفا فيان وحيالها ونعكسنا ينسو قد بنو ولا ليال سيدا دوكتين وحانو كسو هذا اللي سديد قضب أو كمدا أسبابها أما سببها سبب نقوم كرئينو الدومو رير أما لما إسقابا ما أنت وحانو كهلينا موضوع كي أقوينا وعن ديبو دكتي walaalayaal waxa weeye waa sariirta oo xumaata waxay la macno tahay calaaqada ama xiriirka ka dhaxeeya labada qof ee isqaba inay xumaato sariirta waxaan ka wadaa galmada haddaan Soomaali nahay mowduucyada noocaas oo kala ah in laga hadlo way nagu adag tahay waxaan u aragnaa inay ceeb tahay taas darteed waxay keensatay inay dad badan ee arintaas ku baraarugsaneen isla markaana ay ceeb u arkaan walaalayaal waxa loo baahan yahay in arintaas aan ka gudubno isla markaana aanu mataqaanaa aanu karti u yeelano in aanu ka hadli karno labada qof ee iskuursatay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa isu xalaaleeyay haddaba galmadan sheegayo ma tii weynayd ba dadka qaarkood waxay u maleynayaan markii galmo la dhaho inay ka hadlayaan yani galmada weyn oo saksiga ah inay ka hadlayaan afkayga maanta waan yara adkeynayaa si ay dadku wax u fahmaan ma aha walaalayaal waxa loo baahan yahay labada qof inay hadal macaan ka dhaxeeyo inay mataqaanaa wada sheekaystaan inay macda isu badiyaan inay muqaddamo badan suubiyaan in mataqaanaa jawiga guriga uu yahay jawi fiican oo degan galmada ma aha walaalayaal basun in intii wax yar 3 daqiiqo 4 daqiiqo la arko kadibna laga tago waxa ka fiican kalsoonida iyo hadal macaanida mid kale ma ahan labada qof oo isqaba in isdahaan waxa ma suubinaa ma saamayeelna ama hiblaa waa ku baahanahay waa inay u yimaadaan si automatically oo qofka ishaaradu u fahmi karo uusan shuruud ku xirnayn waxna ku xirnayn laakiin haddaan Soomaali nahay waxa maqli jiray waxa isqabi jiray oday habar la yiraahdo isniina iyo oday la yiraahdo jimcaale labadaas qof waxa weeye dhaqankii hore Soomaalida ay ku dhaganaayeen dhaqankii horena waxa la sheegaa habeenkii jimcada soo galaysa umba xaajiga iyo xaajiyadiisa arki jireen marka jawiga waa la bedelaa waa la hagaajiyaa guriga wax dhan marka isniina waxay suubin jirtay guriga maalinka khamiista ta habeenkii jimcada soo galaysa unsiga carafta iyo diraca ma malayn kartid